وانا شخص كهبون مدحوينه بوسكا ادو مغعودي aad baanu kaaga mahad celinayna waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dalka ee uu gartay inuu aqoontii oo qof ah ee loo magacaabay inankaygaas marka insha Allah waxaan leenahay dawladdu ama xukuumaddu way ku mahadsan tahay bulshaduna way la riyaaqday markii madaxweynuhu uu gartay booska free zonka maray loo magacaabo runtii waanan uga mahad celinaynaa waxaan oranayaa waa ninkii ku habboonaa booska isaga aqoonteedii leh kartideedii leh dhalinyarada isboortiga magaalada Boorama ayaa u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii magacaabistii Professor Cabdirasaaq Iidle oo loo magacaabay maareeyaha aaga cashuuraha ka caagan free zonka dhalinyarada ayaa sheegay in magacaabistan ay tahay mid ku timid aqoon karti waayo aragnimo uu leeyahay Professor Cabdirasaaq Iidle isla markaana ay ku faraxsan yihiin xilka muhiimka ah ee loo yigmaday mas'uulka waa kuwan dhalinyarada oo faahfaahin ka bixinaya ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa maanta waxaan nasiib u yeelanay iyada oo wiilasha kamid ah qabanqaabiyay dhalinyarta yani inay u gurmadaan oo uga gurmadaan balwadaha iyo wixii liitay kala dagaalamaan Professor Cabdirasaaq Iidle Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta wuxuu noogu dalnacay agaasime marka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dalka ee uu gartay inuu aqoontii oo qof ah aqoontii oo hiil bani aadantinimo ay ku jirto professorka in la noo doorto anaga wax weyn bay noo tahay hadaan nahay bahdi sportiga aniga ku hadlaya bahdi sportiga ahna waalidka Cabdirasaaq ahna saaxiibada gaarkii uu leeyahay waxaan bogaadinaynaa ama soo dhaweynaynaa boosishaka uu xaq mutay ee loo magacaabay inankaygaas afkii gobolka ganacsatada aniga ku hadlaya imika waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hambal iyo ilaahay kugu asro xilka mar labaad dadkii maxaan ku raaceen dhalinyarta meesha joogta ee maxay hayday koobka ku ciyaarta waxaan jecelahay in la dhiirigeliyo in gobolka la dhiirigeliyo waayo nabaday wax ka tartaa balwaday wax ka tartaa hortayba hadalka la wada yiri ana haday looma celiyo aad iyo aad baan ugu ducaynaa ducayna ku hadhay runtii waa nin ku suntan sportska neerto waxa uu qabeen inuu saa ku deynayo runtii Iidle maaha siyaasi mar walba inuu la joogayaa kubadda inuu la ciyaari doonaa anigoo markaa ku hadlay afarta degmo afarta degmo gudoomiyahooga afka ku hadlaya waan soo dhaweynaynaa bulshaduna way la riyaaqday markii madaxweynuhu uu gartay booska free zonka inuu maareeyaha loo magacaabo runtii waanan uga mahad celinaynaa hawshan loo idmaday walaalkeen Cabdirasaaq oo ah mid runtii timiday right time right position right place waana mid loo baahnaa in dhammaan dhalinyarta oo dhan ay hiigsanayso mustaqbalka inay dalka wax ka qabtaan loo doorto dad aynkaas oo kala suitable ku habboon meesha iyada marka tadhiirigelintu waxa weeyaan iminka aan sheegayo waxa weeyaan qofku goolmu hela dhiirigelin marka wuxuu ku soo tabcay aqoontii uu ka soo tabcay ay miro dhasho macnaha hela dhiirigelin taas waxaan u jeedaa macnaheeda ama gol waxa weeyaan qofkii wax bartay aqoontii leh ayaa laga yaabaa in dad aan munaasib ku ahayn in meel la geeyo waxaan oranayaa waa ninkii ku habboonaa booska isaga ah aqoonteedii leh kartideedii leh insha Allah waxaan rajaynayaa xilka loo idmadana in ilaahay ku asturo halkan maanta loo joogaa munaasabada walaalkay Professor Iidle waa shakhsi runtii aad noogu qaaliya waa aasaasayashii Free League waa professor ka tirsan professorada magaalada waa shakhsi akhyaar oo bulshaawiya waana shakhsi ku habboon madaxweyne booska adu magacawday aad baanu kaaga mahad celinaynaa isagana waan u ducaynaynaa waxaan leenahay Allah kugu asturo booska waad u qarantaa saaxiib ku soo dhawow hadaan Free League nahayna waanu ku garab taaganahay mar kasta waanan ognahay inaad ka soo baxayso waanu hambalyeynaa walaalkeed Allah ku asturo